أهلا وسهلا soo dhawaada dhammaan baadayada ku xiran channelkayga Emma Media soo dhawaada mar kale ayaantan yara casharka habsan baan naga galay laakiin insha Allah tacaala halkan baan kasii wadi doonaa wiigan waxaan rajeynayaa inaan wiigan digital marketing oo hadda social media caawa aan soo dhammayn doono habeenka ku xigana Google Ads kaan geli doonaa sidoo kale habeenka ku sii xiga waxaan geli doonaa email marketingka halka habeenka ugu dambeeyana aan brief yar idinka siin doono insha Allah hadii rabbi idmo si joojina optimistic sidaad la wada socotaanba waxaan soo wadnay social media marketing baan kusoo jirnay digital marketing qaybta social media aan kusoo jirnay waxaan soo aragnay saddexda factor ugu muhiimsanaa oo boqolkiiba boqol la oran karayo social media way ka anfacayaan saddexda factorkan koowaad wuxuu ahaa Facebook iyo sida loo samaysto iyo xayisiintiisa kan labaad Instagram iyo kan saddexaad haddii labadooda kaa xirmaan si loo samaysto caawa waxaan runtii geli doonaa Twitter LinkedIn Snapchat sidoo kale brief yar oo ku saabsan isna TikTok adiska marka waxaan rabaa waxa ugu horreeya maadaama aysan Soomaalida aad u isticmaalin inaan kuwaan aanan aad u sharaxin sidoo kaleeto inaan idiin sheego waxaan iyaga dhan waa introduction marka faham guud laga helo buu qofku another step u gudbi karaya that's why aan u dooranay marka inaan introductionka aan soo koobno sidoo kaleetana aan ka dhigno wax nuxur leh intaas dabadeed intaan casharka u gudagelin hadda channelka cusub tahay like saar comment noogu reeb wixii fikrado aad haysid haddii aad u baahan tahay caawin iyo ganacsi gooni in xaysiin lagu sameeyo whatsappkayga nagala soo xiriir isna meesha ku qoran yahay sidoo kale ha ilaawa inaad telegramka kusoo biirtid casharadan wiigaana dhammaan doonaan insha allah markay dhammaadaanna waxaan geli doonaa chapter inaan casharada u qaadno iyagoo unique aad loo diyaariyay course min bidaaya ilaa nihaaya ah oo runtii aad ku anfacayso tusaalayaal badan ay la socdaan inaan idiin soo gudbiyo okay haddaan u guda galno waxa ugu horreeya caan ka hadli doonaa waa Twitter ads Twitterka waa taqaanaan baan u malaynayaa waa twitter.com Twitterka caadiga ahaa Twitter platformka waxaan malaynayaa aad baa loo yaqaanaa waa mid ka mid ah platformyada ugu caansan adduunka maanta la isticmaalo inta badanna waxaa lagu qoraa waxa la yiraahdo qoraalada leh userkayga hore ku geeyey inta badan qoraalada leh mostly Soomaalida waxa laga yaabaa in siyaasiyiinta ay ku arkaan laakiin halkan isagoo dhan waxaa loogu talagalay sida guud marka uu shaqeeyo fariimaha gaagaaban la iskula wadaago ama la iskula wadaagsado sidoo kale businesska adduunka oo dhan waxay ku leeyihiin pages dhammaan ganacsatada dadka caanka ah celebritiesska iyo dhammaan qof kastoo yani adduunka wax leh ama social media ku taxan ama wax kale ku leh soomaalidana aad uguma ay badna bin Salman oo kale hadda pagekiisa soo ma jeedaan uu socda automatic dadka like saaraya retweet ka bixinaya love ka saaraya dadka sii share gareynaya intaba marka platformkan Twitterka waa kaas Twitterka mostly advertisementiisa waxaa loo isticmaalaa saddex qaybood mid koowaad in promote wax la yiraahdo lagu sameeyo promote-kaas oo ah dadka ganacsatada inay ganacsigooda ku xaysiistaan مثلا shirkaddaas waxaan rabaa inaan xaysiimo badan u sameeyo simple sidii kuwii horeeto kaleeto waxba kama duwana objectivekii buu leeyahay wixii dhan buu leeyahay arkii buu leeyahay creativity buu leeyahay waa qaabka labaadna trend to kafa wax la yiraahdo balkan trends ku shaqeeya trendskan baa hadda ugu horeeya trends for you warshka labaadna oo xaysiinta loo isticmaalo waa in trendskan ay dad badan ku gaaraan trend walba 24 saac halkan soo fuula haddaad u baahan tahay in shirkadaada oo kaleeto trendiyada ay kusoo biirto gobolka Soomaaliya oo kaleeto adduunka trendiyada qof markuu soo galo trendiska fiiriya waxa maanta ka trend garaysan marka inkastoo Soomaaliya aad looga isticmaalin that's why uu wax topicyo aan ahayn waxaana halkan noogu soo saaraya waddankayga si guud oo common ah marka objectiveka labaad oo loo isticmaalo waa in trendiska lagu promote gareeyo objectiveka saddexaad oo loo isticmaalo Twitterkana waxa waaye promote account-kaaga promote loo sameeyo Twitterku wuxuu Facebook uga duwan yahay Facebookga friendska aad la aadahay ma siyaadin karto 5,000 oo qofna ma dhaafayaan haddaad u baahan tahay wax ka badan intaas waa inaad page samaysataa ama followerska caadiga ah oo aad aragtay pageka followers baa u yeelan kartaa Facebookkaaga laakiin Twitterka userkaaga caadiga ah aad ku xiri kartaa isagaa promote gareyn kartaa qoraalada soo dhigtid baa promote gareyn kartaa wax walba ku samayn kartaa objectka saddexaad waxyaabaha uu xayeysiinaan uga duwan yahay Twitterka waxaa ka mid ah wuxuu aad ugu xiran yahay lacag kasta oo
xaysiintiisa laga qaado performance. Yani Facebook waxa laga yaabaa inuu lacagtiisu kaga dalaco dadku gaaray ama dadka maxaan ku rahdaa laba jeer tusay, laakiin kan qofkii click siiya waxaaga ama like siiya buu lacagtiisa kugu dalacaya. Sidoo kaleeto xaysinaan waxaa raqiisan Facebook, laakiin markii loo xisaabay beer kan baa raqiisan. waxaa kaloo kan uu sii dheereeyay keyword waxa la yihahdo keyword targeting. haddaad u baahan tahay inaad xaysiin samaysid waxaad qoraysaa sida caadiga ah ads.twitter. I think in ads.twitter ay ahayd ads manager markaad tirahdid. Sorry, I think akoonkayga cilada sheegaya. Simple markaas aad tirahdid create campaign baa leedahay, intaan buu ka kooban yahay objectivekaaga. haddaad u baahanta qoraalkaaga in dad badan inuu gaaro halkaan aad tegaysaa. haddaad u baahanta video soo dhigtid dee laidiin sharix mayo, iyagoo dhan waxba ugama duwana kii horeeto. haddaad u baahan tahay followers badan inaad heshid tan baad tegaysaa, kadibna waa buuxbuuxinaysaa. marka idiin sii wado targeting waxa la yidhaahdo oo ad groups buu isagu leeyahay. marka ad groupska marka la joogo baa wax ku target garayn kartaa waxa la yidhaahdo keywords. yani dadkii keyword ahaan dadku waxay ku qorayaan kor inay ku qorayaan ay keyword runtii ku noqdaan baa ka dhigan kartaa kan. marka hadda maadaama goolkan dooranay uu yahay bahalkii keywordiska ama soo saarayo, laakiin goolalka kaleeto objective sida kaleeto wuu ku tusaya. intaas haddaan uga baxo Twitter, haddaad u baahan tahay inaad xaysiin Twitter samaysid simple weeye. waxaa qoraysaa ads.twitter.com. iyagoo dhan waa isku mid, pageka oo dhan ads.twitter.com, kadibna intii baa qoraysaa create baa leedahay, kadibna halkii baa kasii wadaysaa. wixii su-aalaad qabtaan Twitterka oo nagu soo reebi kartaan insha Allah. waxaan rabaa oo kaleeto inaan ku xijiyo Linkidia. Linkidia in badan baan sharaxay baan u maleynayaa. Linkidia waa platform aad cajaa'ib u ah oo loogu talagalay in lagu isticmaalo laba waxood. Linkidia waa appka ugu weyn B2B ama B2C labadaba ay ku wada xiriiraan customerska iyo businessesku. Linkidihu waa meesha ugu weyn oo shaqooyinka laga raadsado adduunka. shaqooyinka dadku ay ka raadsadaan shaqooyinka dadka ay ka raadsadaan aad buu wuxuu ugu yahay informative in qofku shaqo u helo. maxaan ku rahdaa isagaa halkan jobska kusoo dhigaya daily baa laga yaabaa inuu kusoo diro. ad halkan inta doortid ba remote oran kartaa simple, kadibna shaqooyinka dhan baa apply garayn kartaa waxa laala wixii shirkada halkan kusoo gala. sidaas daraadeed isagu haddaad u baahan tahay inaad xaysiin samaysid, horta waxa ugu horreeya loogu talagalay waa laba waxood: in chatka caadiga ah ee adolojyada lagu kala wadaago iyo in shaqooyinka lagu helo. dhowaan waxay soo wadaan sanadka soo socda 2022 in freelancer aaba sida Upwork ama freelancerada oo kaleetana in halkan laga shaqaysto way soo wadaan. marka inta badan profileska waxaa loo dhistaa si professional ah. aniga social media as expert way ku taala oo jeedaan. I think in ciwaankaygina ahaa indhatolan marka halkaa la tago sida Twitterka oo kaleeto isba inay isku mid ahaayeen. hadday soo follow garaysan okay waaye. marka connections buuna leeyahay, second connection iyo first connection iyo third connection wax la yihahdo uu leeyahay. mar kale aan sharxi doonaa insha Allah. haddaad u baahan tahay inaad xaysiinkan ka samaysid, objectiveka ugu weyn ee kan xaysiinta looga sameeyo wax kale maaha, waa B2B, business to business inay xaysiin isugu sameeyaan. adigoo shakhsi ah waa samaysan kartaa xaysiin waa caadi, laakiin objectiveka taa ka waan baxay shirkaduhu inay shaqo ka helaan shirkado kaleeto. waa objectiveka ugu weyn ee xaysiimaha looga sameeyo Linkidia. si Linkidia xaysiin looga sameeyo qofku wuxuu u baahan yahay inuu sida Facebook uu sameeyo. hadda kan waa profileka iyo shakhsiga ah, xaysiin kama samayn karo. waa inaad qorataa page caadi oo shirkadeed oo markaa kadib aad xaysiintii runtii ka samaysaa. Linkidiu saasuu uga duwan yahay bahalkii, asna waa la mid xaysiimihiisa waxba ugama duwana maxaan ku irahdaa kuwa kaleeto oo haddaad u baahan tahay inaad samaysid intii objectiveki intii buu ku siinayaa. laba page laba qaab waa ka qaybgeli waa uga geli kartaa. tan koowaad business.linkidia.com iyo tan labaad waa ads.linkidia.com. laakiin businessku wuxuu kaga duwan yahay waxaa xitaa uu kan promotion wuxuu ku siinayaa lacag $50 marka ugu horeysa xaysiin waxaasan macmiil ugu sameeyo $50 oo lacaga buu ku siinayaa. kadibna hadhow gadaal kaaga dalacaya, yacni marka dhamaysatid kadib buu gadaal kaaga dalacaya accountiga wakaas. marka kan markaad tiraahdid rabtid inaad xaysiin ka abuurtid intii un baa soo gelaysaa, wax kale oo aad qorisid runtii ma jirto. isagu sidoo kaleeto wuxuu awood u leeyahay in shirkadaha
focuska kuu saaro. Unless dalka iyaga Soomaalida aad uma isticmaalaan, maadaama aysan aad u isticmaalin, aad looma isticmaalo Linkidia. Laakiin haddaad u baahan tahay isagana course goonidiisa oo dheer oo platformkiisu aad u habaysan yahay, waan runtii isagana kaga sheekeyn doonaa. Programka ugu dambeeya oo rabo inaan cashirkan kaga hadlo waxa waaye waa Snapchat-ka. One of the best apps. Laba waxood baan rabaa inaan idiin sheego. Snapchat-ku waa app-ka ugu qaalisan ee adduunka laga sameeyo xayisiin. Waxaa laga yaabaa berril inuu 50,000 oo dollar ku dalaco shirkadaha. Waxaa kaloo uu sameynayaa video kasta oo qof kasta uu soo dhigo buu kugu soo darayaa. Yani sida TV-ga inbound oo xayisiinta inbound iyo outbound baa loo kala qaadaa. Inbound-ku sometimes isagoo ka howlgala. Haddana saas oo tahay xayisiimo yaryar oo Lancer la yiraahdo, I think in meelahan ku jartay buu leeyahay. Midda saddexaad oon rabo inaan idiin sheego, dad baa iga soo codsaday inaan ka hadlo. Snapchat-ku qof Soomaali jooga wax xayisiin ah kama samayn karo. That's why aan markiisa ka daynay. Haddii dalalka xayisiimaha laga samayn karo Soomaaliya kuma jirto. I don't know reason-kooda, laakiin waddankayga nasiib uma yeelan inuu xayisiimaha sameeyo. Laakiin haddii lacala loo baahdo, igu soo qora qaybta commentiga haddaad u baahan tihiin Snapchat-ka xayisiimo badan idinkaga soo hadlo. Course-keena caawa intaas ku saabsan yahay. Waa food guud oo intaas ku saabsan. Soo dhawaada. Page-ka subscribe iyo like saara, ha ilaawenina. Habeenka ku xiga caawa waxaa ku xigi doona course aad muhiim u ah, waa Google-kii iyo YouTube-kii.